ku xidhnow badda cas 24 TV. Somaliland ayaa waray soo saartay waxa ay ku ogeysiisay dhammaanba ardayda reer Somaliland ee wax ka barata dalka Itoobiya iyadoo ay jirto xaaladda cakran ee dunida ka taagan ee corona inay sii wadan karaan waxbarashadii dalkaasi ay ka baran jireen. War qoraal oo ka soo baxay safaaradda Somaliland ee dalka Itoobiya oo nuqul ka mid ah soo gaadhay xafiiska wararka ee telefishinka badda cas ayaa waxa uu dhignaa sida tan ku socota dhammaanba ardayda Jamhuuriyadda Somaliland ee wax ka barata dalka Itoobiya ujeedada wargelin si looga hortago faafidda xanuunka coronavirus ayaa dowladda Itoobiya waxay ku fasaxday dhammaanba ardaydii waxbarashada ka waday magaalooyinka kala duwan ee dalka kuwaas oo ardayda Jamhuuriyadda Somaliland ay qayb ka ahaayeen. Tani intii fasaxaasi la geliyay waxaa socday dadaalo lagu doonayo sida ugu habboon ee dib loogu bilaabi karo waxbarashadii dalkaasi ka uga socotay ardayda iyadoo la raacayo tilmaamaha hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO oo ah in xal loo helo arrintaasi. Sidaasi darteed wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Itoobiya waxay go'aamisay in waxbarashada lagu sii wado hannaan online. Warkan qoraalka oo sii socda ayaa lagu yidhi anagoo tixraacna go'aankaasi waxaanu ku wargelinaynaa dhammaanba ardayda Jamhuuriyadda Somaliland waxbarashada ka waday dalkaasi Itoobiya inay waxbarashada ku sii wadan karaan hannaankaasi online-ka ah isla markaasina aanay ka baaqan karin waxbarashada. Hannaanka ugu habboon ee xogta la xidhiidha arrintaasi uu ku heli karo arday walbana waa inuu jaamacaddii uu dhigan jiray la xidhiidho si ay u helaan xogta ku saabsan faraha iyo aqoonsiga ay ku galayaan degalka internetka ee ay ka isticmaali doonaan. Waxaa sidoo kale xogtaasi laga heli karaa bogagga ay baraha bulshada ku leeyihiin jaamacadahoodu. Warkan qoraalka ayaa waxaa ku saxiixnaa Cabdikhaaliq Maxamed Rooble oo qaabilsanaha safaaradda Somaliland ee dalka Itoobiya arrimaha waxbarashada. وخضر إسماعيل محمد خضر نبال وركب مقبهية على مقبض عصر الفارتي في هرقيسة مركزتا ملكستا يو وقت كستا بدأ عصر 24 TV كلاس عورك ودنبي يا سومالي دا يا عالم كبا إسدح لغا أي دعيان بدأ عصر 24 TV سوكال وحنا نغلسو عن كتان براهيغا بوشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكال تويتر si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.